war degdeg ah oo hadda soo dhacay. Waa maxay sababta loo xiray Ilhaan Cumar? Xarigeeda muxuu ku saabsan yahay? Ilhaan Cumar ma waxay kula tahay iyadoo senatarad ah Mareykanka joogto la xiri karo? Waa maxayna sababta loo xiray? Haddii aad rabto intaas jawaabahooda inaad hesho, fadlan videogan dhammaystiro oo daawo. Waxaana codsi iga ah inaad like garaysid si videoga meel sare uu ku gaaro, saaxiibadaadana aad la share garayso. Aad iyo aad baa mahadsan tahay. 17 xildhibaan oo Congress-ka ka mid ah Mareykanka ayaa maanta lagu xiray. 17kaas Congress-ka xildhibaanada ka mid ah ee la xiray ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada Ilhaan Cumar oo ah representative-ka Congress-ka ka mid ah, taas oo ah gabar Soomaaliyeed. Ilhaan Cumar oo aynu isla wada naqaano ayaa waxaan halkan kugu cadeynayaa waa maxay sababta loo xiray. Halkan ayaad waxaa ka heli doontaa xaqiiqda dhabta ah oo aan kugu sheegi doono sababta loo xiray Ilhaan Cumar. 17kaas xildhibaan oo ay ka mid tahay xildhibaanada Ilhaan Cumar oo ay wadeen banaanbaxyo, taas oo ay ku dhigayeen goobta maxkamadda sare hortiisa ah, ayaa waxaa cadeeyeen ama ay sheegeen caasimadda booliska ama sida loo yaqaano afka qalaad Capitol Police ayaa sheegeen in ay tilaabo sharci ah qaadeen kadib markii ay 3 jeer u digeen in ay joojiyaan baaq ay usoo direen ama Twitterka ay ku qoreen Capitol Police-ka si ay u joojiyaan banaanbaxa ka dhankaasi ay wadeen 17 xubnood ee ka mid ah Congress-ka, taas oo ay xuquuq ugu raadinayeen iska soo ridista ilmaha. weliba waxay booliska intaasi raaciyeen inta ay soo qabteen 17 xubnood ee Congress-ka ka mid ah aanan ahayn ilaa dad 35 tiradoodu gaarayso ay soo qabteen, taas oo ay ku sheegeen in banaanbaxyadan ay wateen rabshado, taas oo loo diidanaa in wadada traafikada ay dhalisay darteed, iyo banaanbaxan oo rabshadaha wata ay ku hor istaajinayeen ama ay ka hortagayeen sida ay sheegeen booliska. sidoo kale waxa ay ku banaanbaxayeen baa la yiri wadada First NE, taas oo qasabtay in isu socodka gaadiidka ay meeshaasi hakad geliyeen, sidaas darteedna ay ku bilaabeen in ay iska caabiyaan ama ay xiraan. afhayeenka u hadasha xildhibaanada dimuqraadiyadda Ayanna Pressley ee Massachusetts ayaa sheegtay in la xiray ama xaqiijisay in dhowr ah oo ka tirsan xildhibaanada Congress-ka, waxaana ay sheegtay in Pressley ay ka mid tahay kuwa la xiray. sidoo kale agaasimaha isgaarsiinta Ricardo Sanchez ayaa sheegay in dibadbaxayaasha uu ka mid ahaa mid nabadaysan oo shacab ah, taas oo aanan wadanin mid rabshada ah. sidoo kale waxaa xariga ku wehliyay kaaliyaha afhayeenka dimuqraadiyadda ee aqalka xildhibaan Katharine Clark oo ayadana ka mid ahayd dadkii la xiray. haddaba aan hadalkan halkan idinkugu shaaciyo aan idinkugu bayaamiyo, xariga yimid Ilhaan Cumar ma aha xildhibaanadii la xiray ee Congress-ka ahaa ayada kaligeed, mana aha mid ayada kaligeed lagu beegsanayo. hase yeeshee amar diido oo ka timid ayaga, maadaama ciidanka caasimadda booliska oo ay sheegeen in ayaga ay u digeen 3 mar, kuwaas oo bartooda Twitterka ku soo qoreen in dibadbaxayaasha ay sameynayaan ay noqotay mid rabshado walta, saas darteed ay ku timid falkan xariga ah. Soomaalida ayaa cambaareen iyo sumcad xumo raba inay u soo hoyaan xildhibaanada aqalka sare ee Congress-ka Ilhaan Cumar, taas oo ay uga faa'iideysanayaan ayagoo dhahaya xasaanadii ay lahayd Ilhaan Cumar waxaa ka dambeysay in la xiro. hase ahaatee ayagoo doonaya inay aana qabiil uga aarsadaan falkan oo Ilhaan Cumar lagu xiray, taas oo ka madax bannaan sumcad darrada iyo sharaf xumada ay Soomaalida wadaan, ayaa waxa ay gaar ka tahay maadaama ayaga group ay ka mid ahayeen banaanbax dibadda ay ugu soo banaanbaxeen booliska caasimadana ay fariin digniin ah Twitterkooda ugu soo qoreen 3 jeer,
taasoo ay mardiida ay ku sameeyeen darteed ayay ku timid xarigan la xiray Ilhaan Cumar iyo waliba xataa kongareesyada ayada dhigeeda ah ee la xiray hase ahaatee walaalaha qaaliga waxaan halkan idinkala socodsiinayaa in aysan marnaba sumcad xumo iyo sharaf dhac aysan kaaga imaanin intii aad views ku raadin lahayd war aan xaqiiqadiisa salka ku haynin haddaba waxaan halkan idinkugu cadeeyay war xaqiiqo leh oo aan ka soo xigtay CBS News TV kaas oo cadeeyay ama ka hadlay oo sheegay waxaan halkan idinka codsanayaa in aad warbixintan degdega ah aadna la share gareysaan like-tana waa inoo muhiim aad iyo aad baan u mahadsantihiin saaxiibada qaaliga ah kana digtoonaw mar walbaba in aad faafiso war been abuur ku saabsan ama fake news aad iyo aad baa u mahadsantihiin thank you so much